war degdega daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan tuulooyin hoostaga deegaanka Jabadgudane ee gobolka Shabeellaha Dhexe nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo madaafiic waaweyn ku garaacaya goobaha ay ku dhumaalaysanayaan argagixisada al-shabaab iyadoo ciidamadu halkaasina rasaas xoogan ay ku galeen الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgallo ballaaran ka wada deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waayadanba waxa ay deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka wadaan howlgallo xoogan oo lagu baacsanayay kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab deegaanada ciidamadu ay saakay howlgallada ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka Jabadgudane iyo tuulooyin ku dhow oo dhowrkii maalin ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayay kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab sidoo kale ciidanka ayaa deegaano hoostaga degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka wadaan howlgallo ballaaran iyadoo ciidamadu ay ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ka sifeeyaan kooxda nabaddiidka ee al-shabaab warkaynu ku helayno deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan degmooyinka Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Guduud ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay si xawli ah howlgallo ballaaran ay ugu wadaan deegaanadaasi iyadoo ciidamadu sidoo kale ay cagta mariyeen fariisimo dhowr ah oo lagu tuhunsan yahay nabaddiidka al-shabaab wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ay saakay howlgalladii ugu ballaarnaa ay ka sameeyeen deegaanadaasi waxayna sidoo kale ciidamadu ay ku guuleysteen inay cagta mariyaan dhowr fariisimadoo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan nabaddiidka al-shabaab duqeymo xoogan ayaa saaka waxay ka dhaceen deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana lala bartilmaameedsaday koox ka tirsan nabaddiidka al-shabaab kuwaas oo doonayay inay soo weeraraan fariisimo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana sidoo kale dadka deegaanadaas ka dhow ay noo xaqiijinayaan in abaar salaadii subax ay saakay in duqeymo xoogan ay maqlayeen oo dhanka cirka ah iyadoo halkaas lagu bartilmaameedsaday fariisimo oo ay nabaddiidku isku urursanayeen wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ay ku baxeen dhowr goobood oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan nabaddiidka al-shabaab waxayna ciidanku sidoo kale ay ku sii jeedaan tuulooyin hor leh oo ay nabaddiidku ku dhumaalaysanayaan howlgalladu waxay si xawli uga socdaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan deegaanada lagu magacaabo Muqliga Cali Wasaay iyo Mabaax ay ciidamadu howlgallada ay ka wadaan waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in goobo hor leh ay ka farmaroojiyaan nabaddiidka al-shabaab saraakiisha ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maalmahanba ay ku raad joogeen firxadka koox ka tirsan nabaddiidka al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ay ku guuleysteen in deegaano hor leh ay ka saaraan nabaddiidka al-shabaab Shabeellaha Dhexe waxa ay qayb weyn ka tahay goobaha sida weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallada uga wadaan waxayna ciidanka maalmihii ugu dambeeyay deegaanadaasi ay ka wadeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayay nabaddiidka al-shabaab saraakiisha ayaa sidoo kale waxay noo xaqiijiyeen in ciidanku hadda ay fooda ku hayaan degmooyinka Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Guduud halkaas oo ay nabaddiidku gacanta ku hayaan iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la filayo saacadaha soo socda inay gacanta ku dhigaan saad muuqaaladaba aad ku arkaysaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaf wareegaya deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidamadu ay maalmahanba wadeen guluf ka dhana kooxaha argagixisada ee al-shabaab iyadoo ciidanka gulufkaasi ay ka keeneen guulo aad u waaweyn ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay ku guuleysteen in goobo hor leh inay ka sifeeyaan kooxaha nabaddiidka ah iyadoo ciidamadu sidoo kale ay maalmahanba wadeen gulufyo xoogan oo ka dhana kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab duqeymihii ugu cuslaa ayaa saaka waxa ay ka dhaceen deegaano iyo tuulooyin ka dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidamadu sidoo kale Jabadgudane ay ka sameeyeen duqeyn xoogan oo lagu bartilmaameedsaday goob ay isku urursanayeen nabaddiidka al-shabaab waayadanba waxaa si xawli uga soconayay Shabeellaha Dhexe howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wararka saaka sidoo kale inoo helinaya waxay noo sheegayaan in ciidamadu ay bixiyeen tiro miinooyin nabaddiidku halkaas ay ugu doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed
waxaana sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saaka howlgaladii ka dhacay deegaanka Jabadgudane ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan hub iyo saanado military oo ay ka careen kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay goobaha maalmahanba ciidamadu ay sida weyn uga wadaan howlgallada, waxayna ciidamadu howlgalladaasi ay ka gaareen guulo aad u sarreeya. markana haddaynu aadno deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose, wararka inaga soo gaaraya deegaanada Gandarshe, Jilib Marka ilaa Dhanaane ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo nabadiidka Al-Shabaab. dhowaan ciidanku waxa ay la wareegeen saddexda deegaan ee Gandarshe, Jilib Marka ilaa Dhanaane, waxayna ciidamadu sidoo kale ay gacanta ku dhigeen tuulooyin dhowr ah oo halkaasi hoos yimaada. deegaanadaasi waxay dhacaan dhanka xeebta, waxayna hoos yimaadaan degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. ujeedka ciidanka ayaa ah inay si weyn iskugu furaan wadada jasiira ee ka baxda Muqdisho toosna u galaysa degmada Marka, iyadoona ciidanku maalmahanba ay howlgallo sifaynaya ay ka wadeen deegaanadaasi. mid ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaya xiriir dhow la sameynay ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay deegaanadaasi ka wadeen howlgallo ballaaran. sidoo kale ciidamada ayaa waxa ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo rondooyin ah. wararka halkaasi aanu ka helinana waxay sheegayaan in habeennimadii xalay ahayd Shabeellaha Hoose ay ka dhacday duqeymo culus oo lala bartilmaameedsaday koox ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab. goobihii la duqeeyay maraynu xiriir la sameynay dadka ku sugan ayaa waxay noo sheegeen in ciidamadu ay si weyn uga wadaan howlgallo ballaaran. dadka deegaankana waxay sheegeen in xalay ay maqlayeen dhawaqa jug culus ay u malaynayeen inay tahay duqeyn, waxaana wararku sheegayaan inay ahaayeen duqeymo xoogan oo lala bartilmaameedsaday fariisimo nabadiidku halkaasi ay ku lahaayeen. koox ka tirsan argagixisada Al-Shabaab oo isku urursanayay gobolka Shabeellaha Dhexe ama Shabeellaha Hoose aan dhehe ay ciidamadu ay ku guuleysteen halkaasi inay ku laayaan. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan howlgalladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose in ciidamadu ay ku soo furteen hub iyo saanado military oo ay ka careen argagixisada Al-Shabaab. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay noo carbaabeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku sii raad joogaan firxadka kooxda nabadiidka iyadoo howlgalladu ay ka socdaan dhanka hawdka. dhowr maalin ka hor deegaanada Jilib Marka, Gandarshe ilaa Dhanaane waxaa gacanta ku dhigay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxayna ciidanku haatan ay ku sii siqayaan goobo kale oo hor leh oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka Al-Shabaab. maalmihii ugu dambeeyay deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose waxaa si xawli ugu soconayay howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. howlgalkan waxaa si weyn iskaga kaashanaya ciidanka commandoska Gorgor iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaano mootoleyda iyo kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo wada jira, waxayna dhowr goobood oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan kooxaha khawaarija Al-Shabaab ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayay nabadiidka. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in saakay deegaan u dhow Dhanaane uu ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa oo u dhexeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka, waxayna ciidamadu ay soo afjareen koox doonaysay in deegaanadaasi ay weerar ku soo qaadaan. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maalmahanba guluf xoogan ay ugu jireen sidii deegaanadaasi ay uga sifeen lahayn kooxaha khawaarija Al-Shabaab, iyadoona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay guud ahaan bacagta mariyeen fariisimo muddo dheer ay ka arrimin jireen nabadiidka Al-Shabaab. Shabeellaha Hoose waxay ka mid tahay goobaha ciidamadu maalmahanba ay howlgallada ay ka wadaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay ku guuleysteen in goobo hor leh ay ka sameeyaan howlgallo. jidka dheer isku xira magaalada Muqdisho ilaa degmada Marka waxaa ka soconaya howlgallo sifeyn ah oo lagu magac daray howlgalka duufaanta oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sirdoonka qaranka. sidoo kale howlgalka waxaa qayb ka ah ciidanka sida gaarka u tababaranaya Haramcad. muuqaalada aad arkaysaan waa ciidanka Haramcad oo gaaf wareegaya wadada xeebta ah ee Gandarshe, Dhanaane ilaa Marka, waxayna wadaan howlgallo lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. Shabeellaha Hoose waxay maalmahanba martigelinaysay cutubyo badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasoo doonayay inay deegaano horle ay ka farmaroojiyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay noo xaqiijiyeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahanba ay ku dhaqaaqayeen deegaano hor leh oo lagu tuhunsan yahay inay joogaan nabadiidka Al-Shabaab. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saacadaha soo socda
ay ku dhigi doonaan gacanta goobo ay ka arrimin jireen nabadiidka al-shabaab. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli ah uga soconaya howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha khawaarijta ee al-shabaab. ciidanka ayaana maalmihii ugu dambeeyey howlgalladii ay sameeyeen waxa ay ka gaareen guulo aad u waaweyn. daawadayaal, hadduu channelkeenu kugu cusub yahay fadlan subscribe inoo saar. waa mahadsantahay.